Asalaamu calaykum. Marna mis weydiisay mudane haddii qof uu dambi ka galo waddan ka mid ah waddamada adduunka kana baxsado waddankaasi, qaabkee bay ugu suurtagelaysaa booliska waddankaasi inuu dambiilahaasi gacanta ku soo dhigo kuna soo celiyo waddankaasi horgeeyana cadaaladda? Jawaabta isweydiinta leh ayaa ah cidda suurtagelinaysa soo qabashada dambiilaha gacantana u gelinaya booliska uu dambiga ka galay ayaa ah booliska adduunka. Maxay yihiin booliska adduunka? Goormaas la aasaasay? Waa maxay shaqadooda iyo waajibaadkooda? Su'aalahan iyo kuwo kale waxaan naga jawaabi doonaa muuqaalkan. Kusoo dhawaada daawade. Dhammaadkii qarnigii 19aad waxaa jiray isku dayo badan oo la doonayay in xiriir iyo wada shaqayn lagu sameeyo boolisyada kala duwan ee caalamka oo waqtigaasi koobnaa. Isku dayadaas ka hor waxaa fashilmay dhowr isku day oo la doonayay in lagu xoojiyo wada shaqaynta boolisyada wadamada Yurub. Sanadkii 1998 waxaa magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga ku kulmay 21 waddan oo Yurub ah, iyagoona ka wada hadlay sidii xal loogu heli lahaa nidaam fududeyn karo qaabkii gacan la iskaga siin lahaa xakamaynta shakhsiyaadka iyo shabakadaha dambiyada ka gala wadamadaas. balse kulankaas iyo kuwo kaloo badanba ayaan lagu gaarin wax natiijo ah. Dadaalada la doonayay in lagu mideeyo wada shaqaynta boolisyada caalamka ayaa dib u soo labakacleeyay bilowgii qarnigii 20aad, iyadoo kulamo dhowr ah kadib ay isku afgarteen in la sameeyo boolis caalami ah kana howlgalo meelo badan oo kala duwan oo adduunka ah, iyadoona loo bixiyey hay'adda boolisyada dambiyada caalamiga ah ee loo soo gaabiyo ICPC, waxaana si rasmi ah loo aasaasay sanadkii 1923. Ujeedada loo aasaasay ayaa ah in boolisyada wadamada caalamka ay iska kaashadaan ka hortagga dambiyada caalamiga ah sida isku gudbinta daroogada, lacagaha been abuurka ah, ka ganacsiga dadka iyo dambiyada kale ee iskaga kala gudba wadamada iyo qaaradahaba. Dambiyadaasi oo ay ku lug leeyihiin shabakado burcad caalami ah. Sidoo kaleeto waxyaalaha hay'adan loo aasaasay ayaa waxaa ka mid ah in boolisyada adduunka ay iska kaashadaan tababarada iyo isdhaafsiga macluumaadka iyo wax kasta oo suurtagelin karo in dambiilayaashu aysan helin gabaad ay kaga dhuuman karaan sharciyada caalamiga iyo kuwa wadamadaba u yaalo. Xarunta dhexe ee hay'adan ayaa ku taala waddanka Faransiiska, gaar ahaan magaalada Lyon. Sidoo kaleeto hay'adani ayaa xarumo ku leh wadamo kala duwan oo adduunka ah, waxaana xubno ka ah 194 waddan oo ka dhigan dhammaan wadamada adduunka marka laga reebo North Korea ama Kuuriyada Waqooyi. Waqtigii u dhexeeyay dagaalkii labaad ee adduunka, shaqada hay'adani ayaa waxaa ku yimid gaabis kadib markii ay samaysay fadeex ka dhalatay in shaqada hay'adani saameyn weyn ku yeesheen nidaamkii Naaziga ahaa ee Jarmalka. Naaziga ayaa u isticmaali jiray hay'adan soo qabashada dadkii diidanaa nidaamkii Hitler ee u baxsan jiray wadamada kale. Waqtigaasi wadamo badan ayaa iskaga baxay xubinnimada hay'adan, waxaana hakad galay shaqada hay'adan. Sanadkii 1946 markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka ayaa dib u habeyn lagu sameeyey siyaasadda iyo qaab shaqada hay'adan, waxayna si rasmi ah u qaadatay magaca hadda loo yaqaano ee Interpol, waxayna taageero iyo garab istaag buuxa ka heleen wadamada aasaasay qaramada midoobay. Wadamadaasi ayaa saxiixay heshiis lagu xoojinayo amniga caalamka. Interpol waa hay'ad madax bannaan, miisaaniyadda ay ku shaqaysana ka hesho qaaraan laga aruuriyey wadamada xubnaha ka ah, waxayna heshaa sanadkii dhaqaale ka badan $100 milyan, waxayna wakiilo rasmi ah ku leedahay boolisyada kala duwan ee wadamada caalamka, kuwaasoo si toos ah ula shaqeeya hay'adan. qaab shaqada hay'adan ayaa ah in markii qof dambi ka gala waddan kana soo baxsado waddankaasi, in booliska waddankaasi warqad lagu soo xirayo qofkaasi u gudbiya Interpolka. Kadib Interpolka ayaa warqadaasi u gudbiya booliska waddanka uu ku sugan yahay dambiiluhu, kuwaasoo soo qabta dambiilaha una gacan geliyo booliska waddanka uu dambiga ka soo galay. Haddii dambiga uu waddanka ka soo galay yahay dambi waaweyn sida gabadfalo ka dhan aadanaha iyo xasuuq, waxaa warqadaha loo qaybiyaa dhammaan boolisyada adduunka, iyadoo markii gacanta lagu soo dhigo loo gacan geliyo maxkamadda dambiyada caalamiga. Warqadaha hay'adani ka soo baxa ayaa leh sumado ama midabo kala duwan, kuwaasoo u taagan hadba dambiga uu galay qofka nooca uu yahay. Inta badan waraaqadahani ayaa ah kuwo sir ah, loona diro cidda ay khusayso, halka mararka qaar qayb ka mid ah loo soo bandhigo bulshada si ay uga gacan geystaan soo qabashada dambiilaha ama looga digo khatarta uu leeyahay qofka la raadinayo. Waajibaadka shaqo ee hay'adani kama mid ahan in si toos ah ay u soo qabtaan dadka la raadinayo. Shaqada hay'adani ayaa ku soo aruurayso soo aruurinta xogta dambiilaha iyo in ay la wadaagaan booliska wadamada uu joogo si ay u soo qabtaan ugana gacan
gacangeliyaan booliska wadanka uu dembiga kasoo galay. sidoo kaleeto xubnaha hay-adani ayaa loo ogoleen inay fuliyaan howlgalo gaar ah. hay-adani ayaa howlgalo ka fulisay wadamo badan oo kala duwan iyadoona kaashanaysay boolisyada wadamadaas, waxayna gacanta kusoo dhigeen dad geystay dembiye badan oo kala duwan. hase ahaatee waxaa jiro in marar badan hay-adani lagu eedeeyo inay geysteen xadgudubyo soona qabatay dad aan dembi lahayn balse mucaarad ku ahaa dowladahooda una baxsaday wadamo kale. dowladaha ay mucaaradka ku yihiin dadkani ayaa ka gudbiyey dacwad, halka hay-adani ay fududeysay soo qabashada dadkaasi iyo inay gacanta u geliso wadamadii ay kasoo baxsadeen. arrintani ayaa fadeexad ku noqotay hay-adan. sidoo kaleeto Interpolka ayaa liiska dambiilayaasha caalamiga oo ku daray soo qabashada dadka loo yaqaan hackerska oo ka shaqeeyay shabakadaha midow ee internetka. hay-adan ayaa fududeysay qaabka ay u shaqeeyaan booliska adduunka iyadoona sahashay inay gabaad waayaan dambiilayaasha geystay dembiyada una baxsado wadamada kale ay u arkaan inaysan kasoo gaaraynin gacanta iyo sharciga wadamada ay dembiga kasoo galeen.